Maxaa keena laf xanuunka si guud? Waa maxay lixda qaybood ee ugu waaweyn oo laf xanuunku u kala baxaa? Ma jiraa qaybo laga hortagi karo oo lifestyle-ka iyo qaabka oo dadku ay u nool yihiin ay sabab u tahay? Sidaase looga hortagi karaa? Su'aalahaas oo dhan waxaad uga bogan doontiin fiidiyogan gaaban oo idinku soo socda. Soo dhawaada mar kale halka aad fiidiyogan ka daawanaysiin waa Dr. Xaashin Network, YouTube channelka aan ku leeyahay. Haddaad hore noola joogteen waa ku mahadsan tihiin. Haddaad nagu cusub tihiinna soo dhawaada. Channelku waxa uu yahay iyo waxa fiidiyoda aan soo daayo iyo xilliyada aan soo daayo waxaasoo dhan fiidiyo hore aan uga duubaya jiro oo channelka ku jiro ood ka daawan doontiin insha Allah. Aan ku bilowno marka si guud lafa xanuunku oo ay ku jirto dhabar xanuunku waxaa loo qaybiyaa 6 category oo waaweyn keenta waxyaalo kale waa jiri karaan laakiin 6daas waaweyn ay u qaybsamaan oo lafa xanuunka ku haya ama ku qabta ama qof taqaan haya inta badan kor lafa xanuuna laga wada yiraa laakiin 6 category oo waaweyn loo qaybiyaa 6daas mid ka midana wey. Aan ku bilaabay midka koowaad waa trauma, jab iyo jug. Jab waa laf jabtay oo macnaa gaariyaad ka dhacday, shilaad ku dhacday, xabadaa kugu dhacday, si kalaad u kuftay, waa jab. Amase waa jug aan jab gaarin laakiin weli laftii ay ku xanuunaydo. Trauma markii la yaraa waxaa kaloo soo hoosgelayda surgery, qalliin aan lafta loola jeedino meel kale loola jeedo, tusaalahaan dhabarka qalliin looga sameeyay, keliya laga qalay, ama marka qaar lafihii lafa xanuun uu ka dhasha oo waxaa la yiraahdaa post surgical symptom la yiraahdaa. waxaa kaloo traumada soo hoos gasha post delivery epidural related pain waxa loo yiraahdo oo hooyooyinka markii caruurta ay maaragta la dhalinayo cirbad epidural la yiraahdo dhabarka looga dhiftaa jirta marmarka qaar. Marka cirbadaas hooyooyinka ama dumarka qaar waxay ku keentaa sanado badan in kadib dhabarkii uu xanuuno oo marmarka qaar uu hore ka xanuunay sanad kadib ay kusoo kacdo marka lafayaasha yaryarka ahayo jointska dhabarku iska galaana inflammation uu ka dhalanaya, irritationkii cirbadii meelihii ay sii martay macnaha waxay keenayaan xanuunay keenayaan. Marka traumada ka mid tahay sababta waa wax meesha lagu sameeyay traumada oo maaragta cirbadiya keentay. Marka categorigaas jab ama jug oo meel ku dhacday ama dislocation sida tusaale ahaan dhabarka oo kale xibnaha mid meel ka durugta, garabka dislocation ku dhacdo godku ka soo baxaa, sinta waa ku dhacdaa. Dislocationka iyo jabka iyo haddii lay ku roon yahay ayadoon xataa jabin in jug weyn oo ay ku dhacdaa xanuunay lafta u keentay waa isku category oo trauma la isku yiraahdaa. Categoriga labaad waxa waaye ii sheeg waxaa la yiraahdaa post fracture pain la yiraahdaa waa chronic, laftu way jabtay, waa la kabay, way kabantay, dhowr sano kadib ama sanad kadib xanuunay iska keentay. xanuunadaas inta badan waxay ka dhalanayaan laftii si full u heal garowday oo markii raajo laga qaado full wax walba waa healed uu ku leeyahay dhakhtarku ku leeyahay waa fasaxan tahay wax laga qabanaya jira haddana xanuunay keentaa. Sababtuna waxa waaye lafaha historically waxay ka samaysan yihiin wax la yiraahdo way ka mid yihiin gruubyada la yiraahdo connective tissue ay ka mid yihiin. Marka iyadoo kabantay haddana tissue-gii structure-kiisii gudaha ka bedelmayo sideedii originalka ahayd ma noqoydo. Marka isbedelkaas yimida wuxuu keenayaa uu xanuun keenayaa meeshii way kaban tahay laakiin isbedelkaas yimid oo laftii structure-keedii ku dhacay waxba kama qalloocna waxba kama duwana laakiin structure-kaas yaryar oo unit-kaas gudaha isbedelay ilaa regeneration jira cells oo lafaha laftooda ka dhashaa jira. Marka regenerationkii unugyadaas gudahii aan sidoodii ahayn oo iska bedela markay jabantay oo kabantay unugyo cusubaa soo baxay oo kuwa hore marmarka qaar ka bedelan. Marka waxaa loo yiraahdaa post fracture symptom la yiraahdaa. Marka waa sababta markaa dhakhtar tagto sida caadiga dhakhtarka waxyaalaha laga rabo waxaa ka mid ah inuu ku weydiiyo su'aalaha weli hadaad tusaale ahaan dhawaraad ka sheegayda jilbaad ka sheegayda weligaa ma jabtay, weligaa qalliin ma lagugu sameeyey, xataa qalliin meelo kale loola jeeday, weligaa shil ma gashay. Marka dhakhtarku markuu su'aalahaas ku weydiiyaa categorigu raadinaya waxaanu ma post fracture symptom ma trauma hore kusoo kacayda qofkaana waxyaalahaasuu raadinaya dhakhtarku markuu su'aalahan ku weydiiyayo su'aalo iska maala yacniya maahan. waa sababta historyga qofku ay muhiim u tahay markuu dhakhtar ka yimaado in laga wareysto waxaasoo dhan la weydiiyo. Marmarka qaar su'aalo aad isleedahay lamaba xiriiraan wixii aad dhakhtarka ugu timid muxuu qalliimo iyo wax hore kaa weydiihaya jilibku xanuunayaad ugu timid. categoriga marka su'aalahaas marka aan ku weydiihayna waxaan raadaynaa categoriga laf xanuunka ku haya meesha uu categoriga uu ku salaysan yahay raadinayna. Qaybta saddexaad waa qayb
ta ugu commonsan oo ugu caansan waxaa la yidhahdaa degeneration la yidhahdaa wear and tearna waa lagu yidhaha luqadda ingiriisiga waa waxa rheumatismada loo yaqaano inteeda badan waa age related oo dadku markay weynaadaan ay u badan tahay laakiin waxaa jirtaa dadka qaarkood life stylekooda ayaa aad buur u ah maaragtay ii sheeg culayskooda badan waa iska fadhiyaan activity male daayatkooda buur daayad ah marka noloshooda sidaasa sigaarkii hadday rabaan cabaan marka way kusoo degdegtaa dadka noocaasa oo life stylekoodu uu sidaa yahay way kusoo degdegtaa laakiin inteeda badan rheumatismadu waxay u badan tahay dadku waxay bilaabataa markay 40 gaaraan 10% dadka waa sii socotaa 50 ka badan 60 qofku markuu gaaro 50% oo dadka 60ga gaara ah rheumatismadaas qaba laakiin good newska amase waxyaalaha fiican waxay tahay inteeda badan iyadoo ku jirta oo degenerationkaas ay ku jirta aysan xanuun keenin dadka qaarna iyadoo yar x-rayga marka aan ka aragno iyadoo weliba qoorta iyo dhabarka iyo midda laga arko iyadoo yar oo aan badnayn qofka haddana xanuun ku haydaa qaarna ayagoo badanoo lafti ay taabanayso aysan wax xanuuna ku hayn marka waxaa la yidhahdaa image does not correlate the symptom always marmarka qaar imageka x-raydu iyo waxa ay sheegaydaa correlation lama laha symptomka ku haya marka sidaas weye marka qaybtaas wear and tear la yidhahdaa waa qaybta saddexaad qaybta afraad waxaa loo yaqaanaa osteoporosis iyo osteomalacia waa la isku qabtaa waa daciifnimo macna laftiyo daciif noqotay oo lafta dhexdeeda ka jirta daciifkaas ay noqotay laba usii kala qaybsama qaybna waxaa la yidhahdaa osteomalacia osteomalaciyadu lafti cufkeedii waa joogaa waa weyntaa laakiin way xoog yar tahay waa maaragtay waa weak waa soft bone way osteoporosisna waxaa la yidhaahdaa cufkeediyaaba yaraanaya lafta cufkeediyaa yaraanaya marka intooda badan weliba osteomalaciada midda la yidhaha waxaa sabab u ah waa muhiim vitamin D deficient chronic vitamin D deficient waqti dheer oo vitamin D levelkiisu qofka uu low ahaa waa video kalaan uga hadlay vitamin D usuu calciumka ula xiriiro oo in calciumku lafta gaarto vehicle-ka ama gaariga wada vitamin D-ga oo gaarsiiyo oo maaragtay absorptionka ama caloosha kasoo qaado jirka usoo diro dhiigga usoo diro lafaha usoo dira waa vitamin D-ga marka vitamin D-gaagu hadduu low yahay ugu dambeynta lafaha ku daciifay noqonayaan marka inay fragile noqdaan oo lafa iska jebi kara noqdaan in ay gaarayaan qaybtaas marka waxyaalaha waxay ka mid yihiin qayb groupkaas wuxuu ka mid yahay groupka la yaqaano sababaha keena ay ugu weyntahay vitamin D deficiency qaybta oo ii sheeg shanaad inflammatory conditions la yiraahdo inflammatory conditionskaas ayagaa laba usii kala qaybsama mid waxaa la yiraahdaa autoimmune disease autoimmune diseaseka waa macnaha haddaan af soomaaliyeeyo waa difaaci jirka oo cellskii inay jirka jeermiska iyo waxyaalaha foreign-ka ka difaacaan ugu talagalana jirkii asagii dib u weeraraya dib u weerarkaas wuxuu dhalinayaa inflammationkaas jointiskii kala goysadii ay soo gaaraysaa marka lafa xanuunka halkaas uu ka imanaya kaas waxaa ugu caansan mid la yirahdo rheumatoid arthritis way badan yihiin rheumatoid arthritis ah jira juvenile arthritis oo isla isaga oo qaybta caruurta ah jira systemic lupus ah jira oo waxaa jira psoriatic arthritis way badan yihiin laakiin waxaa ugu caansan oo ugu badan ugu commonsan mid kale rheumatoid arthritis inflammationkiisu markuu bato waayahan u dambeeyay macnaha medicineka xoogaa horumara laga sameeyo daawooyin badan oo la qaataa jirto oo at least progressionkiisi lagu joojiyo marka waagihii hore adigu 30 sano ka hor waxaa dhici jirta xataa lafaha gacmaha inay saas soo noqdaan dadka swan neck deformity loo yaqaano x-rayga markii laga arko faraha iyo ay saas noqnoqdaan haddaad maaragtay aad google-ka gelida waa arki kartaa rheumatoid arthritis aad ku dhifatay picture-ka raadido dad faruhu saas yihiin aad arkay marka waa qofka aan la diagnose garayno daawooyinkii hakaayo joojinaya aan la siin say u socotay maaragtay xataa qoorta iyo waa soo qalloocanayaan dhabarku wuu soo qalloocanayaa waayihii dambe laakiin maaragtay inflammatorygaas waa maaragtay daawooyin oo kaalmaatiya la siiyo at least progressionka ama inuu hore usii socdo ka joojinaya marka rheumatoid arthritis-kaas symptomyo kalena waa leeyahay laakiin qoorta xanuunayda qofka kala goysyada xanuunaya dadka qaar qabowga dhiba dadka qaar kulaalka dhiba jilbaha xanuunaya ii sheeg weliba subaxi markuu soo kaco ugu daran oo maaragtay intuu dhaqdhaqaaq sameyna ugu daran jointiska dhana stiff noqonaya marmarka qaar farahaas ayaa bararaya kala goysyada bararaya waa rheumatoid arthritis and inflammatory condition kala jira isaguna oo aan maaragtay isagu autoimmune disease ahayn laakiin inflammation kaasuu xiriirtu ku badan yahay ankylosing spondylitis loo yaqaana xiriirta iyo sinuhu u badan yahay laakiin haddaan isku soo wada qabto oo categorigaas oo maaragtay oo shanaad waxaa la isku yiraahdaa
waa inflammatory conditions la isku yiraahdo lafa xanuunka qayb ay ka qaataan ayaguna. qaybta ugu dambayda oo ii sheeg qaybta lixaada oo kategoriga weyna haddaan dib ugu laabto su-aalaha dhakhtarku uu ku weydiihayo waxaa ka mid inuu ku leeyahay family historygaaga dad oo ii sheeg inflammatory conditions rheumatoid arthritis weligaa ma lagaa sheegay dhiig noocaas ma lagaa qaaday weligaa waxaas familkiinu ma qabaan waxyaalahaas weydiiya weli waxaa la raadinayaa kategoriga lafa xanuunkan ku haya meesha uu ka jiro marka historygaas markii lasoo aruuriyo haddana physical exam iyo meesha aad ka sheegayda lagu sameeyo kadib marka dhakhtarku go-aan wuxuu gaarayaa at least idu haya post fracture maahan trauma qofkan ma gelin rheumatism iyo maahan oo agkiisu aad uga yar yahay amase waa suurtagal inay tahay saas usoo aruurinaya wax yara usoo baxaya oo differential diagnosis la yiraahdo waa a iyo b lixdii inta lasoo yareeya 2 ama 3 mid ka mid uu kusoo qoraa marka kadib uu raadinayaa maxaan ku rule out garay hadduu inflammatory u malayo tirada xilamaha dhana ay barbararayo halkaana ay bararayda rheumatoid arthritis lab dhiigu ku diraya oo maaragtay haddii ilaahay ku reeyahay rheumatoid arthritis ka dhiigaga lagu baaro way badan yihiin 3 dhiiga ugu muhiimsan uu ku dirayaa waa la soo ogaanaya marka su-aalaha dhakhtarku kula yeelay interviewgu wuxuu macnaha qayb weyn ka yahay in lasoo aruuriyo waxa meesha ka jira oo history keliya su-aalo lagu weydiiyo lagu soo aruuriyo oo laga soo reeba wax yar marka lixdii aan ku sheegaa wax yar laga soo reeba waxaas yar haddana lasii kala saarayo raajooyin iyo haddii la kurunya dhiigag la diray iyo lagu sii kala saarayo laleeyahay kan maahan kana haya marka saas waay marka sida loo diagnose karayo saxda marka aan kusoo laabano qaybteennii lixaad oo qaybta ugu dambeyda ah qaybta lixaad oo qaybta ugu dambeyda ahu way dhacdaa ma badna laakiin way dhacdaa waa tumoriska waxa loo yaqaano burooyinka tumoriskaasu labay usii qaybsamaan qayb waxaa loo yaqaanaa benign tumoris waa burobiyoodyada yararka garabkay gashaa jilibkay gashaa xataa madaxa meelo kamid ahay gashaa jilibka dhabarka qaybtiisa dambey gashaa oo bakery cyst loo yaqaan xagasho barar yaro oo xagasho kuntul yaro ku jirto dadka qaar ay gashaa waxaa loo yaqaanaa benign loo yaqaanaa macnaha dangerous maaha waa burobiyood loo yaqaana dangerous maahan marmarka qaarkood hadday sii weynaadaan ama daawooyinka qaarkiis qofka uu qaato ama operation kale lagu sameeyo waa tirgargaray karaan inay iyada isu bedesho midii nooca kaloo halista nooca halista malignant loo yaqaan waa nooca kansarka loo yaqaano marka qaarkood dadka waaweyn u badan yihiin qaarkood caruurtay u badan yihiin waa fiidiyoyo kalaan ka samay doonaa marka kuwooda ugu caansan oo caruurta ku dhaca waxaa loo yaqaanaa osteosarcoma iyo ewing sarcoma loo yaqaanaa shanshadheerta iyo jilibka iyo sinaha ay u badan tahay osteosarcoma dadka waaweyn adaltigana waa ku dhacdaa chondrosarcoma wax la yiraahdaa ku dhacdo ay iyadana malignantigaas kamida oo jilbaha iyo garbaha iyo ay u badan tahay oo dadka adaltiga ku dhacda waxaa jirta multiple myeloma mid la yiraahdo oo spineka iyo dhabarka u badanaa jirta metastasis mid la yiraahdo dhiigga kansarka dhiigu keeno oo kadib lafaha kusii faaftaa jirta marka categorically iyadana waxaa loo yaqaanaa benign iyo waxaa loo yaqaanaa malignantigu waa midda dangerouska oo kansarka benignkuna waa midda fusobrooyinka yaryarka ah marka lixdaas nooc oo waaweyn ay kusoo aruuraan lafa xanuunka kusoo aruuraan marka sidan fideoga horeba aan hordhici aad ku maqasheen ma jiraa kuwo maaragtay laga hortegi karo kuwa laga hortegi kara waxaa ka mid a kuwo wax iska dabeeciya oo maaragtay iska dhaca oo waxaad ka bedeli kartaa aysan jirin qaar genetic keeno iyo qaar environmentigu keeno iyo kuwo aada waxba ka bedeli karna jira tusaale ahaan traumada iyo jugtoo kale iyo shil gaara dhacay wax adigu aad ka hortegi kartood wax ka bedeli karta maahan kuwa maaragtay wax laga bedeli karo laga hortegi kara waxaa kamid a rheumatoid yana dhihin osteoarthritis ama ay sheeg inay xataa dadka qaar iyadoo ku hayda dadka qaar ay la nool yihiin oo fiican yihiin waa dadka active-ka oo jointska lubricationka iyo dhacaankii uusan ka dhammaanin oo jimicsiga fiican sameeya oo weigtkooda iyo culayskooda kontaroola oo aan iska fadhin oo socdo oo cuntadooda fiican taho cuntooyinka shiilshiilan iyo inflammationka siyaadiye aan u badnayn oo noocaas maaragtay lifestyleka noocaas maaragtay wear and tearka lifestylekaaga haduu fiican yahay waa delay aad ku samay kartaa haddii kalena hadday kugu dhacda xataa xanuun kuguma keenido waa la noolaa kartaa si fudud midda ugu muhiimsan oo laga hortegi karaa waxa waaye osteomalacia iyo osteoporosis lafahan daciifa vitamin D-gaagu hadduu fiican yahay lifestylekaaga iyo cuntadaadu ay fiican tahay
jimicsi fiican aad leedahay. Weliba carruurta waa muhiim marka ay soo korayaan inay kubadda ciyaaraan, inay maaragtay jirkooda uu dhismo, in caanaha la siiyo calciumka ay ku jirto, in haddii lay ku roon yahay waxyaalahaas maaragtay koriimadooda ay muhiim ka qaata si cufka laftuba uu usoo dhismo. Weliba sportska iyo cayaarta iyo waxyaalahaas waa muhiim ay u yihiin. marka kuwaas waa kuwo xooga lifestyleka wax looga bedeli karo oo laga hortagi karo. Video dhan aan duubayaa jirto oo vitamin D-ga ku saabsan ayaa jiray, oo iyo muhiimadda uu leeyahay iyo siduu lafa xanuunka u keena iyo waxyaalahaas aan videogaas channelkaad ka daawo kartiin. Marka haddaan soo aruuriyo videoga, marka 6daas group ay maaragtay ay ka kooban yihiin lafa xanuunku si guud 6daas group. marka videoyada soo socda mustaqbalka aan mid mid u kor istaagi doonaa iyo sida loo diagnose gareeyo iyo waxa uu yahay iyo mid mid qaabka aan channelka u rangareeyo waxa waaye kondishimada aan rabo inaan ka hadlo si guud oo general ahaan usoo qabtaa, kadib iyo noocyada ay kala yihiin, kadib aan xabad xabad usii galnaa sidii dadkiina ila socday markaan ka hadlaynay dhabar xanuunka si guudan usoo qabtay, kadibna 6 qaybood oo hoosaan 5 qaybood oo hoosaan usii degnay. marka kana waa sida lafa xanuunka si guud waa sidaas, kadibna 6doodaasaan gelgeli doonaa oo mid mid usoo qaban doonaa. haddaad ku cusub tihiin channelka waa soo dhawaada, subscribe ku dhifta, videoga like gareeya si uu dad kale usii gaaro. 30 cisho u dambeeyay 1000 qof in ka badana nagu soo biirtay oo YouTube channelka kusoo biirtay. waa mahadsantihiin, soo dhawaada. dadkii kale hore maaragtay videoyada u like gareeyay ama u share gareeyay oo sababta u ahaa in dadkaas ay gaartaan, idinkuna aad iyo aad u mahadsantihiin. Salaamu calaykum, isku soo noqosho wanaagsan oo dambe.